markasta cadowgaaga ka horey laba tilaabo maadaama aad ogeyn meeshuu kaaga imaanayo. Laacibkan Ashraf Hakimi wuxuu dhigay taariikh inaba caadi ahayn, dadka caalamka la yaaban waxyaaba uu sameeyey. Laacibkan wuxuu qaataa mushaar inaba caadi ahayn, wuxuu ka qaataa kooxda PSG, wuxuu ka mid yahay laacibiinta ugu mushaarka badan kooxdaas, sida ognahay Messi iyo Neymar iyo Mbappe ogna mushaaradii qaataan, asagana uu ku jiraa. qiso podcast barnaamijyadeena waxaa kala socon kartiin Spotify iyo YouTube-ka. arrinta leeb kale waxay tahay xaaskiisa inay dalbatay furiinka kadib waxay tiri maxkamadaas la aadayna. maxkamadan waxay ku rabtay in ay hantidiisa haaf hesho. maxkamadii horgeys waxay tiri laacibkan hantidiisa u baahanahay haaf inaa qaato maadaama aan galnay heshiis markaa isguursanayna. badanaa Yurubta iyo gaalada badanaa waxay isticmaalaan sharci ah labada qof haddii isguursadaan inay maalkooda ama hantidooda dhexda ku dhufsanayaan. marka laacibkan mushaarkiisu uu badan yahay 1 milyan euro u qaataa bishii. laacibka marka uu mushaarkiisu uu badan yahay waxay istiri hanti ka qaado maadaama ay kala tagteen. cadawga meel kaga imanaa ma ogid, marka waxaa u baahan tahay inaa ogtahay sharciyaasha, sidoo kale sharciga galaysidna inaa ogtahay. markasta sharciga saxiixaysid, sharcigaas waxaa laga yaabaa inuu adigu ku dhaawici karo. marka heshiiskaas ay galeen asagana aqliga uga baxsaday ayaaba mucjiso ah. Hakimi sheekadu sameeyay inaba caadi ma aha. hooyadiis aan ognahay sida World Cup-ka ugu soo qayb gashay ciyaarihiisa iyo Morocco heerka ay ka gaartay, yani World Cup-ki ay noqotay kooxda afraad ugu fiicneed Afrikana, kooxda ugu horeysa soo gaarto semi final inaba caadi ma ahayn kooxdaas. waxaana dhiirigelinaya hooyooyinkooda. arrinta cajiibka ah waxay tahay Hakimi markasta u baahan yahay inuu wax gato, hooyadiis ayaa u gadayso. hooyadiisa baawur darta u gadayso, ayada baawurkeeda wadaa, baawurkeeda oo kasoo daga hantidaas ayada iskale, sida caadiga ayada iskale, ayada ku qoran yahay akoontigeeda kusoo dhaca. marka laacibkan aqliga uu sameeyay adduunka dhan la yaaban. xaaskiisa hore markay ogaatay laacibka inuusan waxba lahayn, mushaarkiisa markuu qaataba hooyadiis akoontiga uu siiyo 80% ayada qaato, 20% waa intuu waxba ku gagadanayo yar yar. marka sheekadan waa sheeko faniya. Hakimi wax maal ah ama hanti ah meel uma taalo. hantidaas waxaa iskale hooyadiisa iskale. hooyadiisa iskale oo waxay rabtay maanta ku sameyn kartaa. maadaama hooyadiisa ay tahayna waa ognahay hooyada kalgacaylka iyo naxariista ay u hayso caruurteeda. hooyadaas baawur u gadaysaa, waxay ula dhaqmaysaa sidii cunugii yaraay dhowr sano ka hor ama 20 sano ka hor ay hayn jirtay camal hadda ilaa hadda u dhaqaysaa. maalkiisii hantidiisina ayadaa iskale, ayadoo ku wareejiyay. hadduu maanta ka dhinto ayadaa maalkaas qaadanayso. marka Hakimi wuxuu dhigay taariikh inaba caadi ahayn. qiso podcast barnaamijyadeena waxaa kala socon kartiin Spotify iyo YouTube-ka.